dhirbaaxada sokeeyey iyagu moodayaan dheefe dhowdooda qaraxyadu shacbiga way dhantaaleen dhankiisii shabaabay cilmiga waa ka dheertiine halkuu malab dhadhami jiray dhanaan baa tufaysaane dhibaatada sokeeyaa darajaa ka dhigataane dhabannadan gacmaa saaray waar iyo dhafoorkiiye waa dhaygagiyo yaab ahay dhegola'aantoodu dhabarkay ka jabiyeen bulshada dhowri maayaane بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ولي وحن كوكو جرنا ردينت علماء ما في هذا الشباب علماء كله لأن يراد مسلمين مرين هبابية وفكرك تكفيرك كده أبور المسلمين intaanan diraasaynin fataawada ibn taymiya tataarka ku saabsan waxaan arkay inay aada u muhiim tahay inaan idin fasiro mustalaxaadka ibn taymiya iyo culamo kale qof aan mustalaxaadka fahamsanayn aan ma fahmi karo fataawadaas saas darteed wuxuu arkaya inuu imaamka tataarka ku gaalaysiiyey ku dhaqanka dastuurka dartiisa waxaan ka bilaabaynaa iimaanka ahlu sunna wal jamaa waxay ka aaminsan yihiin محمد بن ناصر وحو ليه قالوا أي أهل سنة الكفر ضد لأصل الإيمان لأن للإيمان أصلا وفروعا فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر فإن قيل لهم فالذي زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا نعم أصله ثابت لولا ذلك لكفر وحيري أهل السنة وحدهن قال لماذا ولدك سلك إيمانك محياله إيمانك وحليه سل يفرعي قال لماذا ما سقنانيسو إلا سلك إيمانك أوزولو dad uu nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay inaysan mu'miniin ahayn macnaheedu ma ahan inay gaalo yihiin salka iimaanka way haystaan laakiin waxa ka zuulay qayb ka mid ah faracyada ibn taymiya wuxuu leeyahay al-iimaan ثلاث درجات إيمان السابقين المقربين وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك وإيمان الظالمين وهو ما يترك فيه بعض الواجبات ويفعل فيه بعض المحظورات ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب وحيري إيمانك سدح أيو قيب سماء وفرع عيسى معها سلكيسة إيمانك مقربين وقوى واجباتك إيو مستحباتك ودن فليان إيمانك المقتصدين وقوى واجباتك ودن فليان لكن مستحباتك كتغان يو إيمانك ظالمين وقوى واجباتك قار كتغان أما محرماتك قار سميان كذب وحشاقي إن عقيدة أهل السنة وحكمت إنيسان قاليسينين قف دنبي كدعي taasna ay tahay fikirka khawaarijta maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in iimaanka hal qayb kaliya uu yahay uusan qaybsameynin mid ka mid ah waajibaadka hadduu qof muslim ka tago salka iimaankiisa uu zuulaya macnaha gaal ayuu noqonaya meesha ahlu sunna waxay aaminsan yihiin in qof muslim hadduu dambi galo salka iimaankiisa ma zuulayo oo gaal ma noqonayo ابن تيمية وحيري كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد وحيري سيدي أهل السنة إيشاغان قفك فراعية إيمانك كتغه واجباتك إيو مستحباتك قالكم نقنايو
ilaa uu ka tago salka iimaanka, kaasna waa ictiqaadka. meel kale wuxuu ku yidhi waliimaanu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu waalkufru ismun jaamicun likulli maa yubgiduhu allahu wayanhaa canhu wain kaana laa yakfuru alcabdu ida kaana macahu aslu liimaan wa bacdu furuuci alkufri min almacaasi. wuxuu yidhi qofka ma gaaloobayo hadduu salka iimaanka leeyahay iyo qaybo ka mid ah faracyada gaalnimada oo ah dembiyada, maxaa yeelay dembiyada faracyada kufriga ay ka mid yihiin. wuxuuna yidhi waalmuslim idaa ata alfaaxisha laa yakfur wain kaana kamaalu liimaan alwaajib qad zaala canhu. wuxuu yidhi qofka muslimka ah hadduu faaxisho la yimid ma ku gaaloobayo, laakiin iimaanka waajibka ah qayb ayaa ka zuulay, salka iimaanka kama zuulin. meesha waxaa laga fahmayaa in iimaanka wuxuu u qaybsamaa salka iimaanka, iimaanka waajibka ah iyo iimaanka mustaxabaadka ah. qofka islaamka soo galay oo waajibaadka qaar ka tego ma ku gaaloobayo ilaa hadduu burburo ictiqaadkiisa oo ah salka iimaanka. taas haddii la ogaado, riddada ama diinka baxa waa laba nooc, mid diinta looga baxo iyo mid kale aan diinta looga baxayni, sidii kufriga uu laba nooc yahay, kufr akbar iyo kufr asqar. ibn taymiya wuxuu leeyahay faama tawbatu min alxasanaat falaa tajuuzu cinda axadi min almuslimiin bal man taaba min alxasanaat maca cilmihi biannahu taaba min alxasanaat fahuwa ima kaafir wa ima faasiq wain lam yaclam annahu taaba min alxasanaat fahuwa jaahilun daalun. ilaa an qaal wahuwa ima nifaaq akbar yukhrijuhu min asli اliimaan waima nifaaq asgar yukhrijuhu min kamaalihi alwaajib calayh. ilaa an qaal fainahum low taabuu min dalika lakaanuu murtadiin ima can asli اliimaan waima can kamaalihi. ilaa an qaal والرجوع عن طاعة الله ودينه لا يخرج عن أن يكون ردة عن أصل الدين فيكون كفرا مغلظا وإما عن كماله. هذا لو كان الرجوع عن نفس الترك، فإن ترك الإيمان كفر وترك الواجبات إما فسق وإما معصية. وحيري حسناتك إن لغا توبات كانوا ما بنانو قفك عمل وناكسن كتوبات كانه عصو أق laba midkooda ayuu noqonaya, gaal ama faasiq. falkaas laba midkooda uu yahay nifaaq akbar ee ka bixiya salka iimaanka iyo nifaaqa asqar ee ka bixiya kamaalka iimaanka waajibka ah. hadday camal wanaagsan ka toobad keeneen, laba midkooda ay noqonayaan murtadiin salka iimaanka ka baxeen oo gaalo noqdeen, ama murtadiin iimaanka dhamaystirnaantiisa ka baxeen oo faasiqiin noqdeen. in ilaahay adeecadiisa ama diintiisa laga noqdo, laba midkooda keliya ay noqonaysa salka iimaanka laga ridoobo ee gaalnimo ah ama kamaal al-iimaan laga ridoobo. maxaa yeelay in iimaanka salkiisa laga tago waa gaalnimo, in waajibaadka laga tagana faasiqnimo ama dambi ay noqonaysa. wuxuu yidhi wariddatu qad takuuna can asli اlislaam kalghaaliyati min annusayriya walismaaciiliya fahaulaahi murtaduun biitifaaq ahli sunnati washiica wakalcabaasiya, waqad takuuna riddatu can bacdi اddiin kaxaali ahli bidca araafidatu waغayrihim. wuxuu yidhi riddada waa laba nooc, mid salka islaamka looga baxo sida nusayriyada iyo ismaaciiliyada, iyo mid diinta qayb ka mid ah looga baxo sida ahlulbidc. riddada aan diinta looga baxaynin waxaa daliil u ah xadiidka ay soo saareen bukhaari iyo muslim iyo annasaa'i can salama ibn alaqwa annahu dakhala cala alxajaaj faqaala ya bna alaqwa irtadadta cala caqibayka tacarabta qaala la walakin rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam
أذن لي في البدو. حجاج وحو سلمة رضي الله عنه كيري ربت هذا أياد أردودي ررمي أيا نقطي وحو جوابي ميا لكن نبي صلى الله عليه وسلم أيا إفسحي إن باديها ديكو مسألة وحلو يقانا المرتد عربيا فتح مكة كهر هجرة واجب إيكو أهد صحابة قف ديغان كيسا كسو نقدا مرتد أيا لدي هجري لكن ردada diinta looga baxo ma ahin waa ridada waajibka laga noqdo waa riddatu can kamaali lwaajib ma ahan riddatun can asli liimaan sida culamada ay cadeynayaan. alqaadi ciyaad wuxuu leeyahay ajmacat اlummatu calى taxriimi tarki lmuhaajir hijratahu wa rujuucihi ila watanihi wa ana irtidaad almuhaajir min alkabaa'ir. culamada waxay isku raaceen inay xaaram tahay in qofka hijrooday maka furashadeeda ka hor uu wadankiisa kusoo noqdo iyo in riddada muhaajirka uu yahay dambi kabaa'irta ka mid ah. imaamu shaafici wuxuu yidhi waman rajaca can shayin jaaza an yuqaala irtada can kada. qof wax kasoo noqda waa bannaan tahay in la dhaho waxaas uu ka ridoobay xataa hadduusan diinta ahayn. marka riddada waa labo nooc, ariddatu can asli liimaan iyo ariddatu can kamaali liimaan alwaajib. ibn taymiya labada nooc u isticmaala. waxaa looga kala fahmaya inuu ereyo kale ku daro oo uu ku cadaynaya inuu riddada koowaad ka wada, sida inuu yidhi murtad can asli lislaam ama murtad can asli liimaan, ama uu yidhi kaafir murtad, ama uu yidhi yustataab wain taaba wailaa qutil. sidii riddada ay labo nooc u tahay, sidaas oo kale alkhuruuj can alislaam uu labo nooc u yahay, mid diinta looga baxo iyo mid aan looga baxaynin. waxaa daliil u ah xadiidka uu muslim soo saaray can abi dhar qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ina bacdii min ummatii أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. نبي صلى الله عليه وسلم وحيري أمتي ذا دد أيا كمد أو قرآنك أخنايا أو أندوم توذا دافينين دينتا أيك بحايان سيدا فلارتا ee ogaarta uga dhex baxayso kadibna ma ku soo laabanayaan. inta la abuuray waa kuwooda ugu xun. wuxuu ka wadaa khawaarijta. haddaba diinta ay ka baxayaan khawaarijta ma inay gaaloobayaan ayaa laga wadaa mise nooc kale aan gaalimo ahayn. ibn xajar wuxuu leeyahay waladii yadhar ana almuraada biddiin alislaam كما فسرته الرواية الأخرى وخرج الكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. waxaa muuqata in diinta laga wada islaamka sidii ay riwaayada kale fasirtay. hadalka canaan ayaa laga wada in falkooda dartiisa ay uga baxeen islaamka kaamilka ah oo ah kamaalul iimaan, ma ahan inay salka iimaanka ka tegeen oo ay gaal noqdeen. ibn taymiya wuxuu yidhi fakalaamu cali wagayruhu fi lkhawaarij yaqtadii annahum laysuu kufaaran kalmurtadiina can asli lislaam. hadalka cali radi allahu canhu iyo keyrkiisba khawaarijta ku saabsan ayaa laga fahmaya inaysan gaalo ahayn sidii murtadiinta salka islaamka ka baxeen. wuxuuna yidhi ibn taymiya walam yaxkum cali radia allahu canhu wacimmatu saxaabati fiihim bixukmihim fi lmurtadiin bal jacluuhum muslimiin. cali radia allahu canhu iyo culamada saxaabada khawaarijta axkaamta murtadiinta kuma xukumin, laakiin waxay ka dhigeen muslimiin. meel kale wuxuu ku yidhi ibn taymiya وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم
إلى أن قال: فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وغير كيسبا خوارجتا ما قاليسينين تاس وحي تسيسا إجماع الصحابة إنيسن خوارجتا أهين مرتدين دين دا إسلام كبحين meeshan waxaan ka fahamnay in khawaarijta ay muslimiin yihiin inkastoo xadiidka uu sheegaya inay diinta ka baxayaan diinka baxaas ma ahan kan lagu gaaloobo. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri an Abdullah ibn Mas'ud qaala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam law anna rajulayn dakhala fi al-islam fahtajara lakana ahaduhuma kharijan 'an al-islam حتى يرجع يعني الظالم منهما. هدي لابنين إسلامين كدب اسكو حناقان أو كلفوغادان مد آيا إسلام كبحي واكي دلمي إن كستو أرنتان كلحناقة أيسن قالمو أهن وحال يري إنو إسلام كبحي تاس واحد دليل أتهي إن كلمة خارج عن الإسلام معناه هذا ونقون كرا دنبي أن قالمو أهين. ابن تيمية وحويري وهذا كقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي هذه صفة المسلم فمن خرج عنها خرج عن الإسلام ومن خرج عن بعضها خرج عن الإسلام في ذلك البعض. وكذلك قوله المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وحيري قفك صفة مسلمين تكتغو أو مسلمين تعرب تيسا إيو قعان تيسا كدبو إسلام كأيو كبحي دين كبحاس طبعا معهن كي لو قالوا بو محيالي ولي قود مسلمين تا ويسعين آيان أن وينائس دلايان taas ay tahay qof arimahaas ku gaaleysiiyey lama arkin marka diinka baxaas waa dambi ma ahan gaalnimo. intaas aan ku koobaya hadii kale way badan yihiin hadalada noocaasa. halkan waxaan ka fahamnay in kalimada kharij an al-islam macnaheedu uu noqon kara dambi kabaa'irta kamid ah. hadaba aan eegno macnaha al-khuruj an shari'a. ibn Taymiyyah wuxuu yiri وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت اللحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهي عنها. فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل. wuxuu yiri qofka meelahaas ee gaalada ku cibaadaystaan siyaaro u tago hadana i'tiqaadsan in siyaaradaas ay cibaado mustahab tahay iyo in ay cibaado tahay in meelahaas lagu cibaadaysto qofkaas shariicada islaamka uu ka baxay kabixitaankaas waa gaalnimo. saas darteed wuxuu ku daray waa inuu ka toobad keeno hadii kale waa in la dilo. مال كله وحو كيري ابن تيمية والوقوف بالعرفات لا يكون قط مشروعا إلا في الحج باتفاق المسلمين في وقت معين على وجه معين. فمن قال أقف ولست بحاج فقد خرج عن شريعة المسلمين بل إن اعتقد ذلك دينا لله مستحبا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. qofka carafo istaago asoon xaaji ahayn shariicada muslimiinta ayuu ka baxay laakiin magaaloobin haduuse aaminsan yahay in arintaas ay diinta ka mid tahay oo ilaahay uu sharciyeeyay wuu ku gaaloobaya. haduusan ka toobad keenin waa in la dilo. macnaha haduusan taas aaminsanayn shariicada wuu ka baxay oo dambi uu galay laakiin diinta kama bixin. وحيري ابن تيمية وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه فهذا منكر قبيح مخالف لسنة خارج عن الشريعة.
wuxuu leeyahay qofka meherka badiyo ayadoo faan iyo istustus ka tahay arrintaas shareecada islaamka way ka baxsan tahay. arrintaasna waa la ogyahay inaysan gaalnimo ahayn, saas darteed kuma darin fainahu yustataab fain taaba wailaa qutil. wuxuu yidhi ibn taymiya ina ahla almadinati yarawna qitaala man kharaja can shariica kalxaruuriya wagayrihim. culamada madiina waxay qabaan in lala dagaalamo kuwa shareecada ka baxeen sida alxaruuriya waa khawaarijta. laakiin waxaan soo marnay in khawaarijta aysan gaalo ahayn, waana ijmaaca saxaabada siduu ibn taymiya sheegay. taas macnaheedu waa in qofka shareecada ka baxay inuusan gaal ahayn mar kasta. mas'alada ugu dambeysay ee ay aada u muhiim tahay in la caddeeyo si loo fahmo fataawada ibn taymiya tatarka ku saabsan waa xukumka maanici zaka xilliga abubakr radia allahu canhu. jumhuurta culamada waxay kala saareen kuwa diinta ka ridoobay xilligaas iyo kuwa sakada diiday. yani kuwii horay way gaalaysiiyeen, kuwii dambena ma gaalaysiinin. ibn taymiya wuxuu leeyahay wartadda bisababi mowti rasuuli sala allahu calayhi wasalam walama xasala lahu min adacfi jamacaatu min annaas. qowmun irtaduu can iddiin bilkuliya وقوم ارتدوا عن بعضه فقالوا نصلي ولا نزكي وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا مع محمد بقوم من النبيين الكذابين كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهما. وحويري سدح قلاء يار الدوبي جيريد النبي صلى الله عليه وسلم كذب. qolo diinta ay ka baxeen gebi ahaanba, qolo kale diinta qaarkeed ay ka ridoobeen, waxay dhaheen salaada waan tukanaynaa laakiin sakada ma bixinayno. iyo qolo kale nebiyaal beenaalayaal rumeeyeen sida musaylima iyo wixii la mid ah. hore waxaan u caddeeyey in riddada ay laba nooc tahay, mid salka iimaanka burinayso iyo mid kale iimaanka waajibka nuqsaaminayso laakiin aan lagu gaaloobaynin. maanicu zaka waajibka sakada ay ka tegeen laakiin maysan inkirin inay waajib tahay, saas darteed ma gaaloobin inkastoo murtadiin la magacoobay. laakiin waa riddatu can ilwaajib ma ahan riddatu can asli diin. culamada mowqifkaas qabaan waxaa ka mid ah alimaamu shaafici. wuxuu yidhi وأهل ردتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل ردة، قال الشافعي رحمه الله تعالى فهو لسان عربي، فردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد يمنع الحق. قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا. وقول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في قول أبي بكر هذا من حقها، لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على تمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. wuxuu yidhi ahlu ridda waxaa ka mid ahaa qolo aan diinta ka bixin laakiin sakada diiday. haddii la weydiiyo maxaa ahlu ridda loogu magacdaray, wuxuu ku jawaabay riddada waa laba nooc, mid lagu gaaloobo iyo mid kale xaq waajib ah la diido. qof wax ka soo noqda waa bannaan tahay in la dhaho waxaas uu ka ridoobay.
kadib wuxuu yidhi in kuwa abubakr iyo cumar ay ku doodeen dagaalkooda muslimiin ay ahaayeen. haddii kale abubakar wuxuu dhihi lahaa nimankaas mushrikiin ay noqdeen, kelimada tawxiidka ay ka tegeen, mana dhihin. alkhataabi wuxuu yidhi فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد عنهم كفارا، وإن كانت ردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن ردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبولا إليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين، وعلق بهم اسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا ولزوم الاسم إياهم صدقا. وحيري كوا زكاة ديدي وحا كمد أها داد أن كتغين سلك دينتا أو شهادة. sababta riddada loogu nisbeeyena ay tahay in adeecida ay ka tegeen, xaqa waajibkana ay diidaan. qof arin uu samayn jiray hadduu ka laabto arintaas wuu ka ridoobay ayaa la dhihi karaa luqad ahaan. wuxuu ka wadaa in kuwa zakada diiday ay waajib ka ridoobeen, diinta kama ridoobin. ibn xasm wuxuu yidhi ahlu riddati kaanuu qismayn: قسم لم يؤمن قط كأصحاب مسيلمة والسجاح، فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط، لا يختلف أحد في أنهم تقبل توبتهم وإسلامهم. والقسم الثاني قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فعلى هذا قتلوا. ahlu ridda laba qayb ay ahaayeen: qayb gaalo ah oo beenelayaasha raaci, iyo qayb labaad islaame aan gaaloobin islaamkooda kadib laakiin sakada abubakar ka diiday, saas darteed ayaa loola dagaalamay. macnaha diinta inay ka baxeen loolama dagaalamin, marka muslimiin ay ahaayeen. ibnu qudaama wuxuu leeyahay ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي. ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي. وحيري عمر يورك لا أيا مركه هوري كبيو ديدي دقالك مانع الزكاة. حدي آمين سنايين إني قالوا يهين ما كيستاقلهين، ساس درتد لمن كاس ما قالوا بين أحيي له زكاة وفرع فروع ذا دين كمد قفك فرع كتغينا ما قالوا بايو sida xajka. hadduusan ku gaaloobin ka tegidiisa ma ku gaaloobayo hadduu kula dagaalamo, sida buqaada. ibn cabdilbar wuxuu yidhi faqaatala abu bakr wasaxaabatu macahu maanici zaka lama abow min adaa'iha id faraquu bayna asalaati wazaka faaqaamuu asalah wamtanacuu can الzaka faman aba min iqaamati الsalah wamtanaca minha كان أحرى بالقتل. ومعلوم أن هؤلاء من بين أهل ردة لم يكفروا بعد الإيمان ولا أشركوا بالله، وقد قالوا لأبي بكر ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا. وحيري أبو بكر إيو صحابة وحي لدقالمين كوا زكاة ديدي أن وحانا لأقيهي إن كواس أهل ردة كمد أهايين مقالوبين iimaankooda kadib. ilaahina uma sharik yeelin. waxayna abubakar ku dhaheen maanan gaaloobin, laakiin hantideenna ayaan ka bakhaylnay. ibnu qayim wuxuu leeyahay wakadalika qad qiila fi maanici الzaka annahum calى darbayn minhum man xukima bikufrihi wahum man aamana bimusaylima
وطليحة والعنسي، ومنهم من لم يحكم بكفره وهم من لم يؤمنوا بهم لكن منعوا الزكاة. وحيري كوا زكاة ديدي ولا بقيب، كوا قال نمو لغو حكمي سيدا كوا بين علياش الراعي iyo kuwa aan gaanimo lagu xukumin waa kuwa aan beenaalayaasha rumaynin laakiin zakada diiday. ibn Hajar wuxuu leeyahay وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغليبا. وحيري قال لماذا حقيقة يكو أهد قال ذا زكاة إنكري كوان إنكرين مجاز يكو أهد، معناها قال نمو حقيقي معهن، لكن كوا كلا آيا بدنايين ساسدرتد آيا لوغو مقعدري أهل ردة. ابن تيمية وحويري فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل ردة مانع الزكاة، وكذلك سائر الصحابة، وأقر هؤلاء بالزكاة بعد امتناعهم منها ولم تصبح لهم ذرية. وحيري صحابة وحي لدقالمين أهل ردة كوا زكاة ديدي دقالك كدب وبحيان زكاة معناه وأغلادين caruurtoodana lama adoonsanin, taasoo macnaheedu uu yahay inay muslimiin ahaayeen, maxaa yeelay dadka kale oo diinta ka baxay caruurtooda iyo dumarkooda waa la adoonsaday. marka walaalayaal, ibn Taymiya iyo culamada kale waxay qabaan in maanic zakaa aan waajibnimadeeda inkirin ee muslimiin ahaayeen. riddada loo tiiriyana waa riddada waajibka laga noqdo maahan tii diinta laga noqdo. hadda waxaan baranay in khawaarijta iyo maanic zakaa ay muslimiin ahaayeen, laakiin waa in lala dagaalamo sidii saxaabada ay sameeyeen. arrimahaas haddaan si fiican u fahamnay waxay noo fududaynaysaa inaan fataawada tataarka ku saabsan fahno. ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu diinta na fahamsiiyo, inuu dhalinyarada la marin habaabiye xaqa tuso. waxaan idinkula talinayaa in qofka aan fahmaynin masaa-isha aan ka hadlay uu la kaashado aan qof cilmi leh, maxaa yeelay qof walba ma fahmi karo. ilaa kulan dambe, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. walaalkiina Zubayr Almuhaajir.